nebi maxamed wuxuu leeyahay man yuxram alrifqa yuxram alkhayra. ninkii dhimrinta iyo dabacsanida laga waayey khayrba kaasi ma wata buu nebigu leeyay, wuu khayr waaye. dabacsanaantu diintay ka mid tahay. cunfiga iyo xiddada iyo dagaalka iyo cadhada iyo qallafsanaanta iyo qalbi engeguna diinta kama mid aha. dabacsanida iyo dhimrintu waxay ka dhashaan akhlaaq wanaagga, waa midho ka dhasha. sida awgeed ayaa xataa kuwii nebiga la caytamay ee cayda ula yimi ama habaarka ula yimi, nebigu sidaa ulama dhaqmin. erayo fiican buu ku yidhi isagoo wixiina radinaya. yuhuuddii ku tidhi assalaamu calaykum, geeriye korkaaga ha ahaato. caaisha way caytantay oo waxay tidhi wacalaykum allacnatu wassalaam, idinka geeri iyo nacdaliba korkiinna ha ahaato. nebigu wuxuu ku yidhi caaishaay, to af xun ha noqonin oo miyaanad maqlin bay tidhi ilaahay rasuulkiisa waxay ku hadlayeen. nebigu wuxuu idhi waan maqlaye waanan radiyo wacalaykum un baan idhi. ilaahay aniga wuu ii aqbalaya, iyaga toodana lay aqbali maayo. xataa nebigu kuwii caayey markuu rabay inuu iska radiyo erayada xun afkiisa ma soo marine wacalaykum buu ku goobsaday, intaasuu ku gaabiyey. nebi maxamedna wuxuu leeyay calayh salaatu wasalaam, ilaahay wuxuu jecel yahay rifqiga, waxaanu ku bixiyaa waxaanu ku bixinin qalbi engeg iyo engeginaad. haddaba waxaan rabaa un inaan soo koobo warkao dhan oo aan idiin sheego masaa'ilka soo socda. dadka maamulka haya, siyaasiyiinta ah, oday dhaqameedada ah, a'immada masaajidda ah, dadka xukun u haya, waxaan leenahay nebi maxamed wuxuu yidhi xadiiska saxiixu muslim ku yaalla, allahuma man waliya min amri ummatii shay-an fashaqa calayhim fashquq calayh. ilaahayow ummaddayda ninka wax maamula u qabta ee ku adkeeya, ilaahu isagana ku adkee buu nebigu yidhi. ninkii u dabcana waman waliya min amri ummatii shay-an farafaqa bihim farfuq bihi. ilaahu kii u dhimriyana u dhimri. adigu dooro in habaarka nebi maxamed kugu dhaco iyo in ducada nebi maxamed kugu dhacdo, adaa doorashada leh. nebi maxamed waanu habaartamay, waanu duceeyey, wuu habaaray cidda maamul ummad u haysa, madax ha noqoto, madax dhaqameed, kuwa siyaasadeed, kuwa diineed, a'immo, cidday doontaba ha noqoto. waxaad ku weydo samo iyo dabacsanaanna xoog xoog laguma helo. nebigu wuxuu leeyahy rifqigu, dabacsanidu shay ma lagula yimaado ilaa iyo zaana wuu qurxiyaa. shayna dabacsanida lagama saaro ilaa iyo shaana wuu ceebeeyaa, wuu xumeeyaa. ciddii dabacsanaan la siiyey dheeftiisaa khayr laga siiyey, ciddii dabacsanida weydayna khayr waa waayey buu nebigu yidhi. xad buu nebigu ka gaadhay dabacsanida. safar iyadoo lagu jiro ayaa nin dhallinyaroo saxaabiyo cod macaana oo awr hoggaaminaya dumar saaran yihiin ayaa awrtu hees ugu dhuftay. nin aad u cod macaanna uu ahaa. xoolaha waxaa la yaqaanaa heesaha loo qaado way bartaan. marka la carraabinayo mid baa loo qaadaa, marka la hoggaaminayo mid baa loo qaadaa, marka la waraabinayo mid baa loo qaadaa. qof cod macaani hadduu gela u heeso isagoo hoggaanka u haya, awrtu way dheeraysaa iyadoo dhegaysanaysa qofka kan. saxaabi la yidhaahda anjasha oo aad u cod macaana ayaa hees ugu dhuftay awrtuu hoggaaminayey. dabeetana awrtii baa dheeraysay oo xoog u dheeraysay. dumarkii dusha ka saarraabaa markaa gelgelmay awrta saarraa. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi irfuq yaa anjasha wayxak bilqawaariir, ruwaydak anjasha sawqaka bilqawaariir. anjashow dumarka dhowr buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam, quraaradaha jajabinin, isagoo nebigu u tilmaamaya laa taksir ilqawaariir. yacni nebi maxamed wuxuu gaadhay xad naxariistiisu awrkaa la hoggaaminayo qofka saaran inaan la gelgelin uu rabo ee si fiican loo kaxeeyo. waxaan ku soo koobayaa leeyahay qoys kasta oo dhisan hadday dhimrintiiyo naxariista isticmaalaan way jirayaan. haddii islaantu ay kakanaato qaylo badnaato
ama odaygu askari uu noqdo marka uu soo galo awaamir uu bixiyo yararku derbiyada kala galaan oo qofba meel ku dhuunto sidii kornayl guriga soo galay hadday saa noqoto nebigu wuxuu leeyahy idaa araada allahu biahli beytin khayra adkhala calayhim alrifqa baa nebigu yidhi guri haddii ilaahay khayr la doono dabacsaniduu geliyaabaa ayuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam guri haddii khayr lala doono walidalik baa gurigii nebiga nebi magaa wuxuu leeyahay caaisha waan aqaanaa markaad ii cadhaysantay bal hadda u fiirso waa caasho cadhootay oo guriga joogta laakiin maxay samaynaysaa calaamaduu nebigu ku garanaya inay cadhoonaysa ma inay timaa iska riftaaba mise waa inay qaylaysa mise waa inay buuqda maya nebigu wuxuu yidhi markaad cadhaysantay waan gartaa waxay ku tidhi ilaahay rasuulkiisiyo maxaad ku garanaysaa wuxuu nebigu ku yidhi markaad faraxsan tahayna waxaad tidhahdaa laa warabbu muxamed markaad cadhootana waxaad tidhaahdaa laa warabbu ibraahim haddaadanad cadhadu ku haynna arrinku sidaa maaha baad tidhahdaa nebi maxamed rabbigii baan ku dhaartaye laakiin markaad cadhaysantahay waxaad tidhahdaa buu nebigu yidhi arrinku sidaa ma aha nebi ibraahim rabbigii baan ku dhaartaye dabeetana nebigu waxay ku tidhi ilaahay rasuulkiisiyo wax kale ma sameeyo markaa cadhoodo dee magacaagu malafka ka daayaabay leedahay nebi ibraahim baan soo qaadaa halkii aan adiga kaaga soo qaadi laha yacni dadka cadhadoodii ku soo koobay inay dhaarteedun beddesho halkay warabbu maxamed ka lahayd ay tidhaahdo maxay warabbu ibraahim inay tidhaahdo waxaan leenahay markaa guri kasta oo ku dhisan caynkan aabba kasta iyo hooye kasta oo carruur haya macallin kasta iyo macallimad kastoo wax dhigta waxaan leenahay qofka aad rabto inaad rabbayso qalbigiisa fur intaanu caqliga furin haddaad is tidhahdaa awaamir iyo xoog tuko qasab saan yeel inta uu yaryey dayla waa la tumayaayo uu iska aqbali laakiin maalintuu dhowr iyo toban jir gaadho innaga intaa qaylada buu ku odhanaya maalintuu dhowr iyo toban gaadho tarbiyada xooggaahi ma socoto markaa meel ma gaadhayso laakiin haddaad qalbigiisa furto qofka kan oo ilmahan xanaan aad u muujiso waxaa laga yaabaa inaad aragto dhaqanka ilmo markuu tago kindergaadharkana faraxsan waayo islaanta kindergaadharka joogtaa subaxii markaad u geyso intay u fadhiisataa bay mucaanaqaysaa ka yar intay jilbaha dhulka u dhigto marka yare adigu aad waday ayay mucaanaqaysaa hadhow markay kugu soo daraysana waa soo mucaanaqaysaa klan bay soo siisaa hadhowna adiguna adigoo gacanta hayoo jiidayada war hore u soo soco leh ayaad dhigtaa waad ka dhaqaaqdaa hadhowna mee xaggu jira war soo bax gaadhiga fulu habsan baanu nahaye gaadhigaad kula carartaa idan markuu xaggeeda u sii socdana waa inuu faraxsanaadaa adiga xaggaaga markuu u soo socdana rabshad baa ku soo socotay waa inuu cadhaysnaadaadee iyadu qalbigiisay furtay saa daraaddeed macallimaddu waxay sheegtay kasta uu rumaysay rub buu haystaa macallimaddii baa saa tidhu ku odhanaya waayo macallimaddu qalbigiisay furatay kadib caqligiisu waxbuu aqbalaya adiguna adigoo aan qalbiga furin baad waxaad rabtaa inaad caqliga uu kuu furmo suurtagalla maaha ilma haddaad rabto inaad rabbayso qalbigiisa fur dhunko soo dhowee eray fiican ku dheh ammaan markaasaa qalbigiisu kuu furmaya xataa hadduu qalad sameeyey qofku ma wada xuma qayb wanaagsan buu leeyahy wixii wanaagsanay uu sameeyey ku ammaan hooyo wiil fiican baad tahay saan baad samaysay kan baad samaysay waxan baad samaysay waxaasoo dhan baad samaysay aad baad u fiican tahay ammaantaa yar qalbigiisay furaysaa laakiin hooye waxaad ku dartaa inaad homeworkana ka shaqayso isagoo soo arkaya qof wax qabtay inuu yahay ayuu wuxuu isleeyahy intan yare ka dhimanna islaanta aad ammaanteeda wada heshide inta yarna ku dar laakiin haddaad soo gasho adigoo leh maanta o dhan shaqaad ku maqladay ama markaad soo gasho waad leedahay yaa ka shaqaynin homeworkiisii waa dagaal arrinkaagu farfadhiisto shaqeeya homeworka ka shaqeeya markaasay ku odhanaya aaba t v-gaanu yara dhegaysanaynaaya war kac t v leyne orod ka shaqee in yar markuu gaadho uu kaa tegi idan waxaynu leenahay rifqigaynu sheegaynaa nebi maxamed wuxuu leeyahay dabacsani wax laguma daro ilaa iyo way qurxisaa qalqallafsanaan wax laguma daro ilaa iyo way fool xumaysaa sidaa awgeed ninkii ku yidhi 10 carruuraa dhalo weligay mid ma dhunkanin nebi maxamed wuxuu ku yidhi haddii qalbigaaga ilaahay naxariista ka siibay maxaan anigu kuu samaynaya waxay leenahay qof kasta oo dhallinyaro ah oo waalid leh ilaahay wuxuu ku yidhi waqfid lahuma janaaxa dulli min alraxma waqul rabbi irxamhuma kama rabbayaani sagiira u dabacsanow waxay leenahay qof kastoo daaciyo oo diin sheegaya
fircoon baa la yidhi nebi muuse markaad u tagto waxaad ku tidhaahdaa qawlan layina war dabacsan warka dabacsani xaqa ha sheegin maaha fircoon muxuu ku yidhi nebi muuse markuu u tegey yaa idin rabbiya baa la yidhi rabbuna aladii acطaa kula shayin khalqahu uma hadaa buu yidhi laqad calimta maa anzla haulaai ilaa xaqiiquu sheegayay nebi muuse kama gabanin xaqiiqada laakiin isagoo qowlalada ka xumbaynaya ma sheegin oo dagaalansan ee wuxuu sheegay isagoo raba qofkani inuu xaqa aqbalo idan maaha macnuhu markayn leenahay rifqi noqo diinta ka tag maaha xaqa ha sheegin maaha ilmaha ha sixin maaha khata'a ha joojinin maaha waxaasoo dhan sidoodaa loo saxaya laakiin qaabka loo saxayo qaabka weedha loo odhanayo ayaa waxay noqonayaan qaab fudud waayo nebi maxamed baa ilaahay wuxuu ku leeyahy haddaad qallafsanaan lahayd oo aad qalbi adkaan lahayd dadku waa kaa yaaci lahaa hadda ma aha nebi maxamed miyaanu xaq sheegaynin may xaq buu sheegayay waxyi baanu waday kuwa wuxuu sheegayay ee aayaddani ku soo degtayna waa goob dagaal bay ka carareen qaar ka midii qaarna waa iska fadhfadhiisteen qaarna ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay adduunya doon ahaayeen minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira saxaabay wada ahaayeen laakiin markan gef bay galeen qaybo badanoo ka midii saxaabadii uxud ka carartay qaar baa firdhadkii madiine ku galay gef baa dhacay atawalli yowma zaxaf baa dhacay waxaasoo mashaakiloo dhacay ayaa ilaahay wuxuu ku leeyahay haddana naxariista xagga alle ka timi ee qalbigaaga gashay baad ugu dabacsanaatay dadka ee haddaad adadkaan lahayd dadku wuu kaa tegi lahaa kuwaas baa ilaahay wuxuu ku leeyahay facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr kuwaa dembigooda dhaaf oo ilaahay dembi dhaaf u weydii arrinta iyo taladana wax ka sii baa ilaahay leeyahy maalin bay gafeenoo dib loola hadli maayo nimankaas ay iska tagaan ma jirto maalin way gafeen laakiin waa laga toobad keenaa gefka saa awgeed warka aan rabaa wuxuu yahay marka xaqa waynu sheegaynaa ilaahay kitaabkiisana la qarin maayo sunnada nebigana waa la sheegayaa madaxdaa loo sheegayaa maamulladaa loo sheegayaa a'immadaa loo sheegayaa caamadaa loo sheegayaa cid walbaa loo sheegayaa laakiin usluub buu xaqu u baahan yahiyo dhimurin walidalik nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa dhimurintu in khayr dhammaantii uu ku jiro soomaalidu nacasnimay u haysataa sacaynkaa maaha ad adayg iyo qallafsanida baynu ragannimo u naqaanaa marka reerkiina la soo qaado inaad qowlalada ka xumbayso oo had wax radidid marka meel la ysugu yimaado inaad hadalka dadka ku gubtid xataa haddaad rabto inaad wax sheegto hadal wada mudmudisa aad uga dan leeday kaasi hadalkii uu yidhina jawaabta ka yara bixiyo ku mud kana ku mud dee haddaad warma qaybinayso dad wadi kari maysa asalku wuxuu yahay xaqa inaad sheegto laakiin usluub latiifan oo fiican inaad u sheegto dadka aad tarbiyaynayso ha weynaadaan ha yaraadaan dadka aad koobcinayso rabbaynayso inaad isku daydo inaad quluubtooda haratid markaasaad caqligooda helaysaa qofkii aanad qalbigiisa helin ee cawaatiftiisa aanay gacantaada soo geli karin cuquushooduna gacantaada ma soo gelayso siiba marka la joogo qadaaya tarbiya siiba marka la joogo carruurta iyo barbaarinteeda waa inaynu rafqinimo kula dhaqannaa rafqi inaynu kula dhaqannaana macnaheedu ma aha inaynu xadhigga u sii dayno waxay doonaan ay sameeyaan waa saxaynaa laakiin waxaynu saxaynaa iyadoo aynu qalbigooda hanannay iyadoo aynu kalgacal u muujinnay iyadoo aynu u muujinnay inaynu daraynayno qofka kale sidaa awgeed wakhtigaas ka kooban oo wakhtigii laysiiyey waxaan filayaa 2-3 daqiiqa ka hadhay waxaan idiin sheegayna waa nakhtiin waa axaadiistii iyo aayaadkii culammadu idinku akhriday wax cusub idiinma sheegin laakiin midha aan rabo un inaan idiin sheegaa waxa weeyaan cuquushu ma furanto haddii aanay qalbiyadu furmin